barasabka gobolka Awdal Maxamuud Cali Salebaan Ramaax ayaa maanta si rasmi ugu wareejiyay iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal iyo gudoomiyaha degmada Quljeed hal ambalaas oo maalintii shalay ahayd waftigii hogaaminayay madaxweyne Siinaay ay ku wareejiyeen maamulka gobolka Awdal. Ambalaaskaasi ayaa lagu talagalay in lagu adeego dadweynaha ku dhaqan degmada Quljeed ee gobolka Awdal. barasabka gobolka Awdal Maxamuud Cali Salebaan Ramaax oo hadallo kala duwan halkaasi ka soo jeediyay ayaa waxa uu ka dhawaajiyay gargaarka degdega gobolka loogu keenay oo khaas looga dhigay degmada Quljeed isduuha caafimaadka iyo maayirka bay halka joogaan waftigii madaxweynaha oo gartay inuu khaas u noqdo amarkii madaxweynaha iyo wasiirka caafimaadka in lagu wareejiyo ay khaas u noqoto anna waxaan ku wareejinayaa markaa isduuha caafimaadka si uu ugu wareejiyo gudoomiyaha degmada iyadoo mar walba wasaaradda caafimaadku de gacanta ku haynaysa runtii gobolka ma yara maanta ambalaasyada jooga ilaa 8 ambalaas baa maanta jooga oo kuwii dawladda waa ilaahay mahadi meelaha dhimanna waxaan rajaynaynaa inaan waqso ugu helo مسؤوليتنا كلها وحن فريا أما واجب برضي كوا قف والبا إن هنتدا ومدة كذا حيصل لا يراشوا هنتدا ومدة كذا حيصل إن لا يراشوا واللوجو أديجو وحي اللوجو تلاقيه iskuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Awdal Dr. Cabdiraxmaan Jaamac Xaddi ayaa isaguna geestiisa waxa uu soo dhaweeyay ambalaaskaasi isagoo ka gudoomiyay gudoomiyaha gobolka Awdal waxaana uu ku booriyay maamulka degmada Quljeed inay ilaaliyaan gaarigaasi. barasabka oo ambalaastan ay leedahay degmada Quljeed maanta ugu wareejiyay aad baan ugu mahadcelinayaa ambalaastan wax weyn buu ka qaban doonaa baahiyaha caafimaadka horoojiyay iyo inta qaxootiga ama ay كامسك كوسو كوري لبضل وحن مركا كوريجينيا إسلي gudoomiyaha degmada Quljeed ambalaansaasi waxaan kula dardaarmaya in buuqan soo sameyn doono markuu dhaqaaqay markuu ku soo noqdo labadaba lagu qori doono shidaalkii kiiloomitirkii shidaalkiisu uu ku xidhnaan doono kolba inta kiiloomitir ee uu socdo ambalaansaasi waxay dhex ooli doontaa isla xanaanada degmada Quljeed ugu dambeyntii waxa halkaasi hadal kooban ka soo jeediyay gudoomiyaha degmada Quljeed waxaana uu yiri iskuduwaha caafimaadka gobolka iyo gudoomiyaha gobolka iyo dawladda dadkeeda iyo dalkeedaba baahida jirtay si uu u daboolo ambalaaskaas runtii baahi weyn buu dabooli doonaa baahi weyn oo degmada ka jirtay halkii dumarka rarab looga xiri jiray ee ragdad kaga soo qaadi jiray halkay qolqol ka noqotay iyo halkay culo ka noqotay inta u dhaxaysa rag baa soo guri jiray oo dumarka kaga soo qaadi jiray degta tii maanta waa laga baxaya runtii baahi weyn buu dabooli doonaa insha Allah aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa dawladda dadkeeda iyo dalkeeda garatay in anaga waxa noo soo bixi jiray baahida degmada Quljeed markay baahi ka timaado waxa noo soo bixi jiray kabuura majaan maanta ka Quljeed yaa laayna wuxuu u bixi doonaa meel kasta oo baahi caafimaad ka jirto boon haday noqoto xarr haday noqoto aroosel haday noqoto meel kasto ay baahi ka jirto ayuu u bixi doonaa si kastaba ahaatee gaarigan loo yaqaan ambalaaska maanta lagu wareejiyay gudoomiyaha degmada Quljeed ayaa waxa uu wax weyn ka bedeli doonaa xaaladda deegaankaasi oo markii hore aan lahayn wax ambalaas oo lagu adeego dadka xaalad caafimaad la soo daristo Mustafa Caraale telefishinka caalamiga ee Somali News magaalada Boorama.